mucaaradka dowladda Soomaaliya go'aankoodii ugu dambeeyay ayay ku dhawaaqeen 10ka bisha May waxa dhici doona barnaamij weyn kaas oo lagu qabanayo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Durbaba dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay bilowday kacdoono kala duwan oo arrintan markaas looga soo horjeedo isla markaana in aanan wax barnaamij ah 10ka bishan aanan lagu qaban karin magaalada Muqdisho gudoomiyaasha degmooyinka qaarkood hanjabaada ayay soo direen mucaaradka ayaana si toos ah loogu hanjabay in aysan degmooyinkooda aysan ka qaban karin wax barnaamij taliyaha ciidanka booliiska gobolka Banaadir Macalin Mahdi isagana waxa uu kulan degdeg ah isugu yeeray saraakiisha ciidamada ee ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu amar u duldhigay saraakiisha ciidamada booliiska militariga nabad sugidda iyo sidoo kale qaybaha kala duwan kuwaas oo dhamaantood lagu amray in aanan wax tallaabo ah markaas laga qaadi karin magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka isla markaana barnaamij aan lagu qaban karin mucaaradku iyagana waa ay hanjabayaan waxayna si guud aynu u dul istaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay iyo go'aanka markaas ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo midka mucaaradka oo ay ku dhawaaqeen in 10ka bisha May ay qaban doonaan barnaamij guud oo ka dhana dowladda federaalka ee Soomaaliya marka hore soo dhawaada daawadayaal taariikhdu waxay ku beegan tahay 6 bisha shanaad ee May ee sanadka 2026 haddii aynu ku bilowno magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka shirarkii ugu dambeeyay oo maalmahan ka soconayay Muqdisho isla markaana ay lahaayeen xubnaha mucaaradka ayaa ugu dambeyntii la soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxa lagu soo gabagabeeyay shirkii mucaaradka ayaana sidoo kale waxa ay go'aankoodii ugu dambeeyay ay ka soo saareen arrimaha la xiriira barnaamij ay qorsheeyeen 10ka bisha May in uu ka dhaco magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya mucaaradku waxay 10ka bisha May ay ku dhawaaqeen in barnaamij guud oo ka dhana dowladda federaalka ee Soomaaliya oo ay ka qayb galayaan dadka ay dowladda dhexe ee Soomaaliya ay tacadiyada ay ugu geysatay Muqdisho iyo dadkii markaas guryahooda laga barakiciyay in ay iyagu ay yihiin kuwa ugu horeeya ee barnaamijkan ka qayb gali doona isla markaana waxa ay mucaaradku ay tilmaameen in ay soo gabagaboobeen waayihii dadka markaas afka la qaban lahaa madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo isaga ahaa ninka markaas shirkan jaraa'id qabtay isla markaana iclaamiyay barnaamijkan waxa uu tilmaamay in ay soo dhamaatay soo gabagabowday soo afjarantay in dadka markaas la cabsi galiyo sida uu tilmaamay xuquuqdii iyo xaqii ay markaas dadka lahaayeen iyagu ay markaas ay soo dhacsan doonaan sida uu shaaciyay madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed Masar Shariifka waxa uu sidoo kale uu tilmaamay in arrimahan oo dhan markaas ay la xiriirinayo isla markaana ay tahay muhiimadda koobaad iyo hadafta markaas ay la leeyahay in la bilaabo arrinta in la xiriirta in barnaamijkan markaas la qabto ilaa dhowr degmo oo kala duwan ayaana sidoo kale barnaamijkan lagu qaban doonaa qorshihiisii ugu dambeeyay ayayna sidoo kale xubnahan mucaaradka ay ku diyaariyeen gudaha caasimadda Muqdisho isla markaana Durbaba waxa markaas la dareemi karaa in xaalku uusan ahayn sidii hore sidoo kalena waxay u muuqataa dhinaca kale in isku dabridid abaabul iyo sidoo kale diyaar garow xoogan oo xilligan markaas uu ka soconayo gudaha caasimadda Muqdisho waxa la tilmaamay oo la shaaciyay isla markaana muhiimadda koobaad ay tahay in barnaamijkan degmooyinka qaarkood lagu qabto Durbaba degmooyinka qaar mas'uuliyiintoodu waa ay soo hadleen waxaana sidoo kale ay tilmaameen in aanan wax barnaamij ahaanan lagu qaban karin degmooyinkooda dadka soo hadlay waxa kamid ah gudoomiyaha degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho waxa uu tilmaamay in barnaamij aanan sharci ahayn in aysan dhalinyarada iyo dadka qaybahooda kala duwan in aysan ka qayb gali karin cidii markaas ka qayb gasho ayuuna sidoo kale gudoomiyaha Wadajir waxa uu tilmaamay in la xisaabtami doono isla markaana lagu ciqaabi doono sida uu markaas uu tilmaamay waxa uu intaas uu ku daray in arrimahan oo dhan la xiriirinayo muhiimadoodu in ay markaas ay noqoto in dadku ay si nabad ah guryahooda ku joogaan isla markaana aynan wax fawda ah barnaamij iyo sidoo kale qalalaaso aanan marnaba lagu qaban karin degmadiisa amarkan ka soo baxay gudoomiyaha degmada Wadajir ayaana sidoo kale Durbo waxa uu markaas u muuqdaa mid si guud loogu jawaabayo go'aanka iyo sidoo kale tallaabada ee magaalada Muqdisho ay kaga dhawaaqeen xubnaha mucaaradka
iyaga markaasi fadhigoodu uu yahay muqdisho durbaba isbedel xoogan ayaana sidoo kale yimid diyaar garow ayayna sidoo kale mucaaradku ay sameynayaan degmooyinka ayaana sidoo kale loo kala qaybiyay dadka kala duwan ee markaasi iyaga ka qaybgalaya barnaamijyada culus ee markaasi la qorsheynayo inay ka dhacaan muqdisho laakiin degmooyinka iyagana qudhowdu maamulka gobolka banaadir iyo laamaha ammaanka ayaana sidoo kale amar guud la siiyay waxaana lagu amray in aysan wax barnaamij ah aysan qaban karin xubnaha mucaaradka iyaga qudhowdu barnaamijkan waxay ku aadiyeen 10 bisha May oo ah markaasi maalintii uu gogosho u dhigay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud mucaaradka laba arrin buu ugu goleeyeen mucaaradka laba arrin buu ugu goleeyeen barnaamijkan midda koowaad ayaa sidoo kale waxay tahay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maadaama uu ka qayb galayo caleemasaarka madaxweynaha waddanka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle in uusan markaasi shirkan uusan furmi karin 10 bisha May isla markaana dib u dhac uu imaan karo si markaasi dib u dhacan uu maadaama uu imaanayo iyagana waxay qorsheyseen in maalintaasi ay ku aadistaan in barnaamij markaasi ay ku qabsadaan magaalada Muqdisho maadaama madaxweynihii ballamiyay oo isagaba markaasi uu ka qayb galayo shirar caalami ah iyo sidoo kale tacasuumaad markaasi loo fidiyay xubnaha mucaaradka ayaana sidoo kale durbaba waxay markaasi arrintan ay ku tilmaameen in horeyba markaasi war-saxaafadeedkii u soo saareen in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu 10 bisha May uu ka qayb galayo caleemasaarka madaxweynaha waddanka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle si aynan arintooda gaab u galin isla markaana aysan madaxweynaha u sugin dib u dhacna uusan u imaanin 15 bisha May aanan loo gaarin barnaamijyada 10 May ayayna sidoo kale ku hadiyeen arrintan ayaana sidoo kale dadka qaarkood waxay markaasi ku macneeyeen in durbaba markaasi isbedel uu jiro sidoo kalena la dareemi karo in xaalka uusan ahayn sidii hore oo haatan markaasi ay u muuqato in iyagana markaasi qorshayaal kale ay leeyihiin xubnaha mucaaradka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaana sidoo kale waxa markaasi la tilmaamay in uu mucaaradka uu markaasi uu meermeerinayo isla markaana hadafkiisa ugu weyn ay tahay in uu isagaba markaasi isku diyaariyo sidoo kalena markaasi ay noqoto inta laga gaarayo 15 May in xubnaha mucaaradka sidoo kalena loo sameeyo in arrimahooda oo dhan ay markaasi ay noqdaan kuwa la xiriira in 15 May mashquulin lagu gaarsiiyo 15 May marka la gaaro kadibna awood markaasi ayuuna sidoo kale isku dayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in uu markaasi uu ku xakameeyo xubnaha mucaaradka iyaga markaasi fadhigoodu yahay Muqdisho dhinaca kalena taliyaha ciidanka booliska gobolka Banaadir Macalin Mahdi Cumar Muumin ayaa isagana waxa la tilmaamay in uu bilaabay durbaba dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo isagana markaasi uu ka sameynayo gudaha caasimadda Muqdisho waxa la tilmaamay in degmooyinka waaweyn ee gobolka Banaadir ee Muqdisho markaasi uu ciidamo kale uu u diray kuwaas oo booliska saldhigyada qaarkood ayaana sidoo kale ciidamo hor la geeyay kuwaas oo iyagana markaasi loo diyaariyay in ay ka hortagaan barnaamijyada iyo sidoo kale kacdoonada ay xubnaha mucaaradka ay markan isku diyaarinayaan talaabooyinkan iyo sidoo kale qorshayaashan oo dhan waxa ay markaasi yihiin kuwo si guud ay dawladda federaalka ee Soomaaliya ugu diyaar garoobayso talaabo kasto iyo go'aan kasto markaasi la xiriira in la soo afjaro isla markaana ay noqdaan kuwa natiijo laan markaasi ku soo dhamaado sida uu qorshooyay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isaga mucaaradku u dhaganaya halka mucaaradka iyagana markaasi ay si dhow ay u ogyihiin isla markaana ula socdaan arrimahan waxaana tani ay markaasi ka dhigan tahay sidoo kale ay ka turjumaysaa in xaalka mucaaradka iyo sidoo kale madaxda dawladda federaalka Soomaaliya isbedel weyn oo markaasi uu jiro mucaaradka dhowr jeer oo kala duwan waxay markaasi ay tilmaameen in madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uusan haynin markaasi wada hadaladan daacadka isla markaana uu yahay ninka kaliya ee isaga markaasi doonaya in uu sameysto muddo kordhin iyo sidoo kale in uu markaasi mucaaradka uu iska dabooriyo taasoo iyagu ay markaasi tilmaameen in aysan marnaba aqbali karin Muqdisho jawi kale ay gali doontaa maalmaha soo hadan isbedelo waaweyn ayaana sidoo kale soconaya mucaaradka iyo sidoo kale madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya waa ay isku dhakanayaan waxaana arintani markan ay u muuqataa in isbedelka Muqdisho iyo sidoo kale talaabooyinka ay mucaaradka qaadayaan iyo kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya iyagana kuwa kale ay qaadayaan waxyaabaha ka soo kordho wararkeena dambe ayaan isku wadaagi doonaa damiirka qof walba Soomaali dad dhibaataysan oo guriyo wanaagsan aan ku jirin
hoy fiican aan haysanin nolol fiican aan haysanin aan hubin quuturiyo ayaa muddadii la soo dhaafay la barakicinayay oo bannaanka loo xoorayay berihii ugu dambeeyey waa la sii laba jibaaray ama waa la 10 jibaaray waxay noqotay arrin aan laga aamusi karin oo runtii qof walba oo damiir la taabanaysa ama gudaha ha joogo ama dibadda ha joogo arrintaas marka ragga halkan taagan iyo dad badan oo kaleba markii laga tashaday waxaa noo soo baxday inaan laga aamusi karin loo istaago sida ay tahay loogu istaago magaalada muqdisho waxaan ku wada naqaanaa inay tahay magaalo dadkeedu ay dulqaad badan yihiin sabar badan yihiin laakiin haddana haddii culeyska lagu badiyo oo dulmiga lagu badiyo taqaana sida isaga rido heeriyada dulmiga marka waxaan joognaa meeshii buuxdhaafkan joognaa waa la socotiin dadaa dhintay dadaa dhaawacmay boqolaal kun ayaa bannaanka taagan oo hoy la'aan ah guryaheena waa joogi weynay waa nasi weynay qof aysan taabanaynin ma laha si gaara iyo si guudba marka arrintaas waxaan rabnaa in loo bannaan baxo oo bannaanka loo soo istaago si loo joojiyo dhulboobka iyo barakicinta magaalada muqdisho ka socda arrin siyaasad calaaqa lama laha waa arrin islaami ah maxaa yeelay qof muslim in hoygiisa laga barakiciyo waa ka aamustid arrin saxa ma aha marka waxaan rabnaa dadka magaalada muqdisho iyo dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan gaar ahaan dadkii la barakiciyay inay u soo baxaan xuquuqdooda inay qaataan guryahoodii ku laabtaan maxaa yeelay sida lagu qaadana si sharciya ma ahayn sida hadda wax ku socdaana waa si laba jibaaraysa dhibaatooyinkii iyo duruuftii jirtay marka maalinta oo la soo baxayo waa maalinta axadda oo bishu ay tahay 10 bisha soo socota arrintan bisha hadda aan ku jirno arrintaani uma baahna fasax waa dastuuri xuquuqda laga hadlayo xuquuqda bannaanbaxan waa dastuuri hoy inuu leeyahay qofka u qalmana waa dastuuri sida looga qaadana wajhi sharciya ma aha badiil looma helin waana ogtihiin sida dhulka iyo arrimihiisa loo maamulay magaalada muqdisho sidaas darteed dadka waxaan ugu yeeraynaa maalinta axadda soo socota oo bisha 10 ay tahay 10 May in loo soo baxo si loogu gargaaro dadka la dulmiyay hoygooda laga barakiciyay bannaanka 10 iyo kuwa guryahooda dulmka lagu qaatay in ayaguna ay soo baxaan dadkuna ay soo baxaan qodobka saddexaad waxa waaye dadka halkan taagan waxay diyaar u yihiin mudaharaadkaas inay hogaamiyaan